Hassan Sheikh Mahmoud to meet with inuu la kulmo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed the first ugu horeeyo ay dalbadeen Etoobiyaanka hadaa rabtid inaana la kulantid waxyaalo shuruud ah kow looga dhigay mahad salaad meesha laga qaado Turkey ayaa ku xijto ay ninka meesha laga qaado that's why even they stopped wixii oo da facilitation ki training ki waxa dhan waa la istaaji waxaadada weynaan ku sheegaa yani labo drones ki saaxiib yaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo aad u xiiso badan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Abiy Ahmed miyaa dalbaday in xilka laga qaado mahad salaad maxaase ka jira inuu ku xiray la kulanka uu la kulmayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inuu xilka ka qaado kadib uu la kulmayo muuqaalkan ayaan ku gorfayn doonaa ee soo dhawaada asxaabta haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ay saarto muuqaalkan ila galay si dad badan ugu gaaro muuqaalka waxaa isi soo taraya arrinta la kulanka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Abiy Ahmed taasoo la hordhigay su'aal culus madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud taasoo ah in xilka qaadis uu ku sameeyo mahad salaad kadibna ay wada kulmi doonaan arrintan ayaa soo ifbaxaysa iyadoo siyaasiyiin fara badan arrintan falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay uga hadleen arrintan siyaabo kala duwan ayagoona sheegay waxaan fiicneen markii la fiiriyo in la soo farageliyo dowladda Soomaaliya halka kuwa qaarna ay qabaan intaasi ay tahay wadata balse adiga dhageysto maxay kula muuqataa arrintan ma fulin doonaa arrintaasi madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud bal maxay kula tahay dhageysto adiga arrintan oraahdaada waa ii muhiim ee igu la wadaag qaybta hoose ee commentiga siina dhameyso muuqaalkan si wax badan aad ugu ogaato arrintan oo waagii Zakariya xildhibaan laga qabtay yaa u geliyay gacanta al-shabaab how sidee haddaa dib u fiiriso Twitterkeygii 4 bilood ka hor baa tweet gareynay waa iyo ninka markuu saan loo dhaariyay amiin markii loo dhiibay Nisa ayuu saaxiibka the first thing he did odwa wuxuu ku yiri alaabtan waxa iska leh dawladdu hore ay ku qaldantay waxa iska leh TPLF iyo waxa iska leh Djibouti baashan hal soo celi buu yiri wallahi odwana wuxuu ku yiri baashan dawladii hore ayaa qabatay waxaana isticmaali doono ciidamaha Soomaaliya annagaana u baahan ciidan u dhiibayn malaha maamul goboleedyasha xataa waa hadalka geediidan yihiin oo iscazil lahayd adiga yani adi iscazil inta aniga qaadi lahayd wallahi wuxuu yiri wali sahara waa runteed wuxuu yiri aado oo hebel ah annaga u dhimanuu yiri dawladdan problem maanta haduu dhinto yani aduu ku dhintay annaga u dhimanuu yiri qori maal wax walbo sidee anuu ku keenay meeshan Are you talking to me like that? Wallahi intuu mees ku garacuu ka baxay. Sara was right. Waa run waa laba waan maqlay adiga arrintaas waxba ka jira waa maqlay soo tartay halkaas we no line dad weyn aan ahnay meesha iskugu imaadeen anaga why we have to lie this thing waa wax sax ah oo socdo yani dhibaatada jirto marka waxa fiirisaa marka ilaa ilaahay wuxuu na siiyay aqli aan wax ku fikiro maskaxda wax ku fikiro ilaahay na siiyay rijaal buu naga dhigay bal eeg bal fikir gadaal u laabo hadii dhibki jirin bal adiga ka soo qaadba maba jiroba hadii dhibki jirin oo madaxweynihi ninkan isugu yihiin ka socoto between dawladda iyo al-shabaab macawisley international community dhibaatadan oo socoto do you think hadii sirdoonka u shaqeynayo the way it is ma kula tahay dhibaatadan inay jiri lahayd no dhibaatada way ka sii yaraan lahayd waa aragteen dhibka oo hotelkaas ka dhacay iyo qaabku u maareeyay waa aragteen Xasan Sheikh Maxamuud oo aad ugu gubtay marka dhibaatada taalo waxa waaye sirdoon la'aan wadanka ka jirto waa inaad adinka iyo qof walba ina ogaataan haddii sirdoonka shaqeynaynin functional sirdoonka shaqeynaynin waa wadan aan tiir lahayn oo iska duusan oo qof walba soo galaayo iska baxayo tiir muxsan sidee buu shaqeynayaa because waxa la rabaa in la burburiyo inuu shaqeeyo yaa rabaa that's waxay raadinayaan Soomaali in la burburiyo waxaan
tan kale waxaa la yidhi dadkii oo labadii xaqa xaaraanta xaqdarrada ku heshiiya xaqay ku dagaalamaan in the end. marka meel oo la burburinayo aniga ma isdhahayo way isku qabanayaan, laakiin there is something ibni aadankana waa isqaban karaan, waxa weeye waa bilo aadan weeye, laakiin waxay isku qabteen taasaan rabnaa inaan ogaano. horta dadkan waa dad bini aadan ah, laakiin intaan ogahay waxaan kugu xaqiijinayaa Mahad Salaad wuxuu samaynayo Xasan Sheekh wuu og yahay. Xasan Sheekh waxba kama faqadaan. anaa hadda nii sheegaa wax kasta uu Mahad Salaad samaynayo waa wax Xasan Sheekh ka soo baxay, kama hoos bixi karta Xasan Sheekh. dadkuu keensadana waa dadkuu la soo shaqeeyey. wasiirka maxaa la dhahaa petroleumka waa miduu la soo shaqeeyey. wasiir maxaa la dhahaa Mahad Salaad wuu la soo shaqeeyey 4 sano madaxweyne ahaa. maantiinba akhyaarta meesha ku jirta arinta laba aan u kala qaadaynaa. horta waxna waa wax xog ah, waxna waa wax macnaha ra'yi ah. hadday waxa xog ay tahay oo dadkan la carabi ilka waa isqaniini karaan oo dadkan wada shaqaynayaan, hadday ay tahay oo muxsan soo sheegayo oo de ila lagu kalsoon yahay uu ka soo waaridayaa oo de xog tahay waa wax la qaadanayo. ra'yi damaantoona qofku ra'yi waa ka wada hadli karaa. waxaan u maleynayaa ra'yigiinu sida heeladii oo kale isku jibinaysaan. marka ra'yu meel ma tago, xogtaa ka muhiimsan. marka muxsin waa ku mahadsan yahay xogaha uuna siinayo, maxaa yeelay waa wax maaragtay uu ka hadlayo wax fakti ah oo la taaban karo. hadda habeen dhaweyd meel buu soo galay, wuxuu ka hadlay madaxweynaha saacadiisa inay tahay wax maaragtay wax lagu jaajuuso oo dowladda imaaraadku ay siisay. waa runtii anigu isagu ismaan ogeyn, marka ma garatay. marka waxyaalahaas oo dhan waa wada jiraan. marka the inside qof ka soo warramo waa loo baahan yahay madaxtooyada, sababtoo ah wax ka dhacaya lama oga, laakiin inta kale waa la wada og yahay. marka waa uga mahad celinayaa xogaga uuna siinayo, waana xog waxaan waa isi soo tari doonaa. soomaalidu mar dambaa wax la helaa, laakiin markii ay wax dhacaanin saan oo kale waxba looma helo. marka waa ku mahadsan yahay muxsin. nimankii dee saa ay ku dhacdayna iyagaa laga rabaa inay tallaabo ay qaadaan, inay aamusaan maaha, sababtoo naftoodii baa halis gashay. qof haddii naftiisa halis gashayna hadda meesha meel wax ka dambeeyaa male. marka iyagaa la rabaa dadku inuu faahfaahiyaan khaladka si u dhacay, waxa ujeedada loola dan lahaa, maxaa loo waday. wax marmarsiyaa ma noqonayso inuu madaxweynaha yidhaahdo waa nii soo noqonayaa aniga hala isugo. meesha manaaga isdiraba maxaa laga sugaya, ma habluu qaba miya aniga hala isugo anaa xalinaya. wax arrintaas oo la qaadan kara maaha. meesha accident baa dhacay, ku talagal miyuu u sameeyey, ma ku talagal baa loola lahaa, waa wax jira waay. marka hadda arrintaas waxay na tusinaysaa waxyaabuhu u tegi waayey maxaan ku yiraahdaa dani. leanna shubahaad baa dadka ku jira. arrintaas waxaa shubah weyn baa ka imaanaya. muxuu dani uga baaqday? ma arrintaasaa marka meesha ka jirta waaye, naftooda halis ku jirta. marka waxbaa looga hor dhacay. marka taasaa macquul aniga muxsin oo isdhihi karaa wuxuu dani uga baaqday iyo accidentan waa iskeenayaan. marka waa ku mahadsantihiin. Ahmed, thank you brother kegi, waa mahadsantahay. insha Allah anaga waxaa mar walba isku daanaa inaan maaragta wax hadal oo ama war oo accurate ah inaan keeno. maxaa yeelay haddaan anaga aan been sheegno been waxba kuma siinayso ama waxbana kuma gaarsiinayso. beenna anaga suma sheegin, cid mishaar nagu siinaysana ma jiraan. keliya meeshan waxaa isugu imaanay wadan